سلمى سورة غامرون سيدوه بكوسا ميي وروحنا وكوكو سوهي وحتى هاي مغلا سوهي kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. Haddaad nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. waraana kidigi tabir malin miya digi tabir malin miya maalmo gabadha la tusana dal qorkiisa laga soo tuura ana kanin ma ku sakarna miya taas ayadu jirto waxa yimid gabadha oo sheegaysa in ay tahay udoodaha gabdhaha udoodahooda in ay tahay ay sheegtay waa macallimada gabdhahan ay tiri waxay tiri hal wiila 9 gabdhood aan ku kufsanayna ay tiri hal naaga xarif balminas dadabanaada u keensanay asaan kufsana dabaqa ka soo tuurayna arintaas waan cambaaraynayna rag hadii ay gabar kufsadaan ayadana waan cambaaraynayna oo wax wanaagsan ma ahan xaq diiniyan xagga dhaqanka inta ma wanaagsana ayadana gabadhana in ay hadalkaas laqwiga oo gafka u ah ragga Soomaaliyeed ayadana waan cambaaraynayna marka hadii aad 9 ku kufsan kartaa rag ya hore u dhici lahayd haddana dhici ma karto oo dumar rag kufsanaya ma jirto rag ma kufsadayada waa kufsadaa rag waa kufsana nimanka maana baanka bisan loo kufsana dhiig idmir milimiya marka taas ay ka hoos bixinaan leeyahay macallimada waxaan isdhihi karaa way fududaaday oo intaas xiraadinaysa views iyo waxyaabahaas laakiin maxaa views waa wixii raggii ku daawanayay ee aad macallimada u ahayd ya hadii aaba karbaashiste fiiskaaga hoos u dhaca adeer ya adiga kale waxa haboon inta lagu wado Dr. Habeeb lagu geeyo maxaa meesha soo haray adeer macaan waa lagu wadaa meesha sa lagu geynaa waa iga go'antahay nin kufsado oo sideed naagoodna u balansado intaan kufsado daba ku balamiyo aan sideed naagood u balamina waxa u baahan daawooyin herbal ah iyo daawooyin dabiici ah iyo daawooyin aan waa physical ah macallimada dad ahayd ragga u ahayd anna macallin kalaan ahay ya waxa dadka baraysid aan ka tirtiraa waa ka dhaqa marka ku sanad dabaqa ka soo tuura wallahi gabdhaha waxaan leeyahay gabdhaha qofka ay nolosha la wadaagayaan ama la haasaawayaan in badan ha iska taxadaraan ha iska fiiriyaan dhan walba ha iska eegaan oo qofkan aysan ku degdegin la kulankiisa iyo waa sheegawadaagi iyo aragtidiisa iyo ya yeesan ku degdeginaan leeyahay marka intaasaan kula talinaa gabdhaha ilaahay sharfalaya waxaan u soo jeedinayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed meel walba joogan gabadhu wayna dhashay waan dhali doonaa waalidaan u nahnay waalid ay noo yihiin wayna noo dhaxaan wayna noo dhixi doonaan ayagana tala ayaan sii doonaa ragga ee haasaaway la wadaagayaan oo meelaha qaar ay kula kulmayaan ha iska dhaafaan ayaan dhihi lahay mid kale tan aan dhahayo waxay tahay ragga haasaawaa la wadaagaysiin meel public ah oo mujtamac ay ku badan yihiin inaad kula kulantiin ayaa wanaagsan mar walba taas ay diinteena in la faraysa inaan mar walba aan ilaalino sharafta iyo gabdhaha ay leeyihiin mar walbana sharaftooda aan ilaalino anaga mar walba waxaan u taagnaanay bulshadeena inaynu u soo gudbino waxyaabo anfacaya mar walbana waxyaabo xun inaan ka reebno hal naaga xarif balminas dadabanaada u keensanay asaan kufsana dabaqa ka soo tuurayna rag ma kufsadayada waa kufsadaa rag waa kufsana nimanka maana baanka bisan loo kufsana gudaha daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo